بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام أمد الصومالية برنامج على شير قريو وحيالا أتكلم حضان أيام ما أنت هذا هل كان يكون شيء هيا هداي فيسبوك قام كجري شيء كذا ويسبدلين سد حدين أو متشارتين ودبده كسر الريحة هاي ينكي للقصة ويسبد شيء كذا marka waxaan rabaa inaan idin sheego dadka ka dambeeya waxa ka socda magaalada gobolka Puntland Garowe ayaan rabaa inaan idin wadaago marka si fiican ii dhageysta hadalka waa soo gaabinaya marka waa kaasa marka aan is dhageysano dhibaatadii ka dhacday magaalada Garowe Puntland geedkii la jabiyay iyo ilmihii la soo adeegsaday naaga ayaa ka dambeeya hadda idinkoo raalli ka ah markii hadalladu waa iska soo daba dhacayaan anigu xalay waxa la yiri waa saddex nin oo majeerteen iyo nin leelkasa laakiin hadda reality-gan inii wada darkii Puntland ayaa leenkaygu ku jira marka inaan inii sheegaan rabaa marka si fiican ii dhageysta anigu weligay geed dhagleeyaa ma aanan gashanin marka si fiican ii la socda wax laalay wixii ka dhacay soo jeedkii laga soo horjeedsanayay ninka Siciidani oo lagu kacsan yahay oo farmaajo uu ka soo horjeedo Puntland daraadeedana farmaajo uuna tilaabo qaadi karin ayaa waxaan rabaa warar yar oo gaagaaban inaan idinku soo koobo wararkaas oo kamid ah waxa la soo adeegsaday gabdho Soomaaliyeed oo niman dhulbahantaha ay qabaan oo Garowe kule dukaamo oo waxa dhalay gabdhahaas gabar kamid ah gabdhaha ay dhaleen reer Muuse Mataan oo maanta aan ka hadlayay Facebook-gayga gabdhahaas la soo adeegsaday afarta ah oo bacbushtar ku leh magaalada maaragtay Garowe ayaa niman dhulbahanta oo qaba ayaa soo adeegsaday gabdhahaana la soo maray gabdhahaana waa naqaanaa reer Muuse Mataan taariikhda Soomaaliya meel bay uga jiraan dhibaatooyinkii loo soo geystay waxay soo mareen oo dhan aan la soconnaa marka gabdho ama gabar ay dhashay ina Muuse Mataan oo la soo adeegsaday nimankii dhulbahanto lacagta loo soo dhiibanay ee gabdhaha reer Muuse Mataan oo bacmushtarka ay u keeneen ayaa ka dambeeyay wixii ka dhacay magaalada Garowe okay saas inaad ula socotaan la rabaa ilmaha iyaga kiciye ilmaha iyaga lacag siiyay dollaraan loo qaybiyay marka gabdhaha ee gabar kamida ina Muuse Mataan ay dhashay oo niman dhulbahanta waa afar gabdhood oo niman ay qabaan dhulbahanta ayaa ka dambeeya qalalaasaha ka socda reer Muuse Mataan dad ay naaga bacmushtara oo Garowe jooga ay yihiin dhibaatada lagu hayo Siciidani waa in tilaabo laga qaadaa oo gabadhaas reer Muuse Mataan ay dhashay oo u dhaxan niman dhulbahanta oo farmaajo ku xiran weeyaan marka waxaan leeyahay horta sheekadu waa saas dhibaatada ka socota waxaan dhihi lahaa Puntland waxa loo adeegsaday iyo ka soo horjeedka iyo dhibaatooyinka ka socda magaalada wadanka gobolka dawlad goboleedka la yiraahdo Puntland waxa ka soo maaragtay horjeeda gabdhahan ay nimanka dhulbaanta qabaan oo gabdhaha kamid ah ina Muuse Mataan ay dhashay si fiican waa inay la socotaan dhaqaalaha la bixinayo niman oo dhulbaantaha keenay gabdhahan ay gabadha reer Muuse Mataan dhashay ayay qabaan ragaanu marka rag dhulbaanta ayaa ku adeeganaya wana naaga bacmushtaraha la yiri marka waxaan rabaa inay saas aad ula socotaan mid kale aan rabaa inaan idin sheego ku soco حسن شيخ محمود دكريتدي او كسو ساري ايان دويتو او كهد لهاي او تستوركا دكريتدي او حسن شيخ محمود او سو ساري ايان دويتو وحال الرباء waxay ku xiran tahay dastuurka xaqiisa oo ka hadlayay adeerkay Cabdi Qaydiid oo maaragtay senator golaha sare ah ayay ahayd marka waxa jira in dastuurkii la dhahayay waa la xaday waxa xaday niman majeerteena waxa la geeyay dastuurkii Soomaaliya oo la wada saxeexay oo rag badan ay saxeexeen ayaa waxa la geeyay magaalada Ethiopia ayaa la geeyay dastuurkii ayay wax ka bedeleen dastuurka ayagu maanta ay ku dhaqmahayaan waa kaasa waa ka duwan yahay okay marka Cabdi Qaydiid waa tuu yiri dastuurkii rag buu u garbalaaban yahay soo ma xasuusataan nimanka uu u garbalaaban yahayna waa niman reer Puntland ah oo xaday dastuurkii rasmiga ahaa oo runta ahaa oo Ethiopia geeyay Soomaaliya oo dhan loo dejiyay ee iskugu yimaadeen dastuurka ay dhigteen waa la xaday Ethiopia la aaday dastuurkii Soomaaliya oo dhan ay waxaysay waa la xaday Ethiopia la geeyay hadalkii Cabdi Qaydiid soo qabta hadalka oo maaragtay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaheennii hore iyo madaxweynaha cusub oo soo socda aan isku keenno
marka waxaa hortaagan dastuurkii la xaday oo lagu dabaqo dastuurka maaragtay Soomaaliyeed ay leedahay ayay waxay rabaan inay ku dabaqaan reer Puntland dastuurkii la xaday oo xaqiiqa oo wax jira ah weeyaan marka waana xaqiiq niilahaayo waana wax proofa hadaladii Cabdi Qaydid marka dib ugu noqotaan waxaad ogaanaysaan dastuurkii Soomaaliya oo la wada saxeexay oo go'aan lagu wada gaaray waxa xaday reer Puntland waxay geeyeen magaalada wadanka Ethiopia magaalada iga keenta cil daraadiisa wadanka Ethiopia dastuurkii oo la soo bedelay ayay waxay haystaan isla dastuurkeenii hore oo xadeen ayagu reer Puntland ay Ethiopia geeyeen oo kow ka yahay ninka la leeyahay maxaa la yiraahdaa Faray iyo rag badan oo kaleeto waxaana ku ogaan kartaan digreetadii uu soo saaray Xasan Sheekh Maxamuud iyo hadalkii uu ka hadlay Cabdi Qaydid oo yiri dastuurkii rag buu u garbalaaban yahay ragga dastuurka u garbalaaban yahayna waa reer Puntland nin mareexaanna waxba kama qaban karo waxna ma dhihi karo marka waxaan rabaa inaan idin sheego in dastuurkeennii Soomaaliyeed uu saas noqday Soomaali oo dhan ay wada saxeexday oo la wada fadhiyay oo la wada waxeeyay marka waana wax laga naxo aad looga cabsado in dastuurkii originalka ahaa oo Soomaali ka dhaxeeyo lagu dhaqi lahaa oo adiineen ay ku jirtay inay xadeen dad rag ah reer Puntland ay garbaduubteen ay geeyeen Ethiopia mar hore ay soo bedeleen inay ku leeyihiin annagu dastuur baan haysanaa aan leenahay soo ma ogidin waa dastuurkii ay ka soo qaateen ayay ku dharbaaxayaan dastuurkan qabyada hadda taas inaad ku ogaataan waaye Professor Jawaari waxbuu ka ogyahay Jawaari malda جواهر الرسالة وقصلي بروفيسور جواري وحبوك أوجهي مركز تستوركي سوماليا إلا حدي ساسد كأوجانيسا هدي إلا حدي تستوركي سوماليا ريبوتلين إيجيين إثيوبيا نما كميدا ريبوتلين ودن معنا نما ريبوتلين إيجيين إثيوبيا أي تستوركي أنت وحكسو بدلين أي كي كلام أيكو قاتين أي تستوركي هنا إبر كنجين أو وح أن سعودين أي كسر شبين marka waxaad ogaanaysaan hadalkii Xasan Sheekh Maxamuud iyo rag buu u garbaduuban yahay Cabdi Qaydid oo yiri dastuurku ragga uu u garbaduuban yahay dastuurka Soomaaliyeed waa niman reer Puntland oo ma jeerteen ah taas inaad ogaataan la rabaa maalin kasta waxa qalalaasaha wadanku uga dhacaya ee Puntland meel gooni isku istaagto ay tirahdaan saan la sameeyaan baan sameeynaya waa dadka dastuurka Soomaaliyeed garbaduubtay shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad ogaataan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dastuurkaanu إن أو كوذا نحيي الصومالي ولا لكن لحظي بروفيسور جواري كوتشري أبكي سوق صباحي بروفيسور جواري وحو شاقي تستوركي أي قرين صومالي ولا أي ودميت إنه تستور كمان تيالو ودن كأونا أهين أو لحظي أو لسو بدلي أو لسو جهوريري أو إثيوبيا للتجي oo wax laga soo bedelay waxaana ka dambaysa niman reer Puntland ah ayaa sameeyay hadii Cabdi Qaydid oo yiri dastuurku rag oo u afduuban yahayna waa ragga ma jeerteen oo reer Puntland Soomaalina waa ka badan tahay ma jeerteen in ay dastuur Soomaaliyeed afduubtaan ay bedelaan ay dawladda Ethiopia geeyaan ay dastuurkeeni soo wada bixiyeen marqaatiyana la hayaa oo waxyaalo badan baa la hayaa marka waxaan rabaa taas inaad ogaataan dad hadalkii dekreetadii uu ka bixiyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo hadalkii Cabdi Qaydid oo yiri rag gooni oo u afduuban yahay waa niman ma jeerteen oo reer Puntland ah oo Siciidane Faroole Cabdi Wali Gaas way badan yihiin may fahanteen dani gadaalooba ka yimid laakiin ninkan la leeyahay Faroole iyo Cabdi Wali Gaas iyo niman badan oo kale ayaa dastuurkii Soomaaliyeed afduubtay oo xaday oo geeyay Ethiopia oo ka soo bedelay dastuurkii Soomaaliyeed dastuurkii la wada saxeexday ما أهان تستور كان مركا هوية الربا إلى الله سواء بطلين وعر الرئيسان حيثان we like it Somali in a peace and love إنه قط لكن أنا تستور كنا أفدوبنا هيا أنا الربا إني حكومة مريحانا بقى كما أنت أنا كمان وانا ماتي وإن شرع اللي سكوي ما دا تستور كنا صحيحين بطلين يسوي اللي سائي حتى يقرددوك كو قادتي أي أنت قد بك قادتي أي ترى أنك ودار بطلين هاي تستور بالين هاي وبين تستور اللي يمجرتو وتستورك سوماليا أي كحدين أي إثيوبيا جيين أي سوب الدليل تستورك إلى صحيحين ما هم تستورك ما أنت لو نقمايو يا قاتي ريبوتلين نمان ما تشيرتين وعبد الولي قاس يفر ولا وكم دي هاي ينمان بدن أي تستورك أفدورتي سومالي وحرمانين كشيفنا شيف كإنه ككعو
kii socdayna uu istaago hadalladayduna ay galaan uu dhagaysto may fahmaysaa etoobiyaanka iyo niman majeerteen ayaa soo bedelay dastuurkii soomaaliya dastuurka yaalla maanta muqdisho oo laga oynayay oo ragga qaarkood ay dhahayeen dastuurkaana waa beentiisaba ha aadee macalintiisa yartaa in nala ku dhaqaala rabay marka waxay ka hor imaanaysaa dastuurka yaalla maaragtay ay xadeen reer puntland cabdiweli gaas iyo faroole iyo marka ma dastuurka iyo sharciga soomaaliya waxaa loo afduubahayaa niman shaksi oo reer puntland inay afduubtaan ay dadka rabaan maya kan ma ahan anigu waa saan anigu waa nin ka nasabsan meeshaan ma jiro nin ka tacliim badanna ma jiro waa la kala qiyaamo badan yahay waa la kala tuugo badan yahay marka markii taas aan ka tago waxaan rabaa nimanka dhagaysta waxaan rabaa inaan ka bixiyo ka hadla saddex qodobka koowaad waxaa weeye waxaan rabaa madaxweynaha farmaajo inaan fariin cad u diro oo kama dambaysa maxamed cabdullaahi farmaajo waad garanaysaa soomaali sida ay kuu dooratay oo ay kuu rabtay boqolkiiba boqol bay soomaali ku rabtay maanta meeshaad maraysana waad arkaysaa waxaana la rabaa qofka qalinka waxa uu ku bartay iyo waayo aragnimo iyo taariikh waxa inuu isku darsado drag deals ma waayo aragnimo oo dalkan soo xukumi jiray weliba aad eheltihiin ma fiicno taariikh xumo inaad ka tagto midaan rabaa inaan dhexgeliyo midaan rabaa odaygaan hadlahayo waa oday mareexaana waxaan rabaa inaan inii sheego waxaa la rabaa nin mareexaana oo laga qaaday caabud waaq in la geeyo gedo oo gedo xukumo marka waxaan rabaa ciddaan la leeyahay cildheeraha iyo ree axmedku ma waynan mareexaan ahayn yes waa nasab dhalada oo mareexaana oo nasabka mareexaanna markii loo aftirinayo meel loo raaca ay leedahay walaaya dhegeysta mareexaanana in ka bajeen waxaa la rabaa nin laga keenay caabud waaq inuu gedo xukumo laakiin nin ree axmeda inta laga kaxeeyey gedo caabud waaq ma xukumi karo farmaajo weyga uu ku shaqaynahayo sooma aragtaan nin cildheeraah in laga kaxeeyo caabud waaq inuu xukumo caabud waaq lama rabo mid cildheeraah oo laga qaadayno in gada la geeyo oo xukumo lama rabo marka ulajeedada ay leeyihiin ay ka hadlahayaan ayakiibaa isdharbaaxaya marka sow ku keenay farmaajo inuu gada xukumo oo niman u geeyo caabud waaqna xukumo oo niman maaragtay reer diiniya geeyo xaggana reer diini geeyo mareexaan ma reer diiniba maya xaram calayk way ka badan yihiin mareexaan dadkan caldheeraha la leeyahay waa nimankii aqoon-yahanka ahaa oo mareexaan oo magaca iyo sharafta iyo muuqaalka ku lahaa oo baacmushtarka ahaa oo mutacalimiinta ahaa oo bankiyaaryaha ahaa maxamed siyaad barre markuu waddanka qabsaday kuwa wuxuu ka bilaabay caldheere inuu maaragtay ciddaan caldheere inuu maaragtay ka takhalluso oo madaxa wada jaro sabab waa laga tacliim badnaa waa laga dhaqaalo badnaa oo waa dadka dhaqaalaha haysta oo mareexaan cidda ugu lacag badan oo ugu taajirsan oo magaca iyo sharafta ka lahaa mareexaan magaciisa waxau maxamed siyaad barre uu la dagaalamay raggaas inuu intuu eber ka dhigo oo mid baadiye geel ku lisaayay intuu soo kaxeeyo ou keeno ou maaragtay askari ka dhigo ama dukaan u furo ama kooras asagoo waxna qorin magaciisana aqoonin waxna saxiixi karin in la geeyo marka waxaa inii sheegahayaa soomaaliya ha noolaato odaygaanan kusoo xirhayaa dastuurka soomaaliyeedna waa la socotaan maxamed cabdullaahi farmaajona waa laga takhallusahayaa laakiin reer puntland waxaan leeyahay dastuurkii waddanka adinkaa afduubtay majeerteen baa afduubay marjeerteen baa garbaha ku dhegay adeerka cabdiqaydid magaciina ma sheegin laakiin rag gooni oo shaksiga u afduuban yahay uu yidhi adinkaa intaad xaddeen ayaad waxaad la tagteen etoobiya markaasaad soo bedesheen dastuurkii soomaaliyeed oo soomaali maxamed jilac iyo jareer hawiye iyo daarood dir iyo daarood ay ku dhammaayeen marka waa wax laga dhinto waana wax laga xumaado maantana kaa yeeli mahayo aan kuu taliyo adoo hawiyaa ma jeerteen abgaal waxa weeyaan mar buu kuu hiiliyey laakiin beentaadu waa badato aan abgaal habargidir ku dulo waa socon weyne majeerteenu weligaa ha ku tashanin nin abgaal cismaana oo dhalada oo dhiiggiisu dahab ka samaysan yahay oo ilaahay biyo xareeda dhiiggiisa ku dhex daray in aad ku dirto walaalkiis oo la dhashay oo hawiyoo dhan uga sokeeya taas waan ognahay silsilad aad xirteen inaa habargidir iyo abgaal iska hor keentaanna waa tahay marka runta aan inii sheegaynana runtiina qaata
marka in ilka gardaran yahayna qofka kaa gardaran waa sheegaynaa laakiin dastuurkii soomaaliya adinkaa xaday adinkaa etoobiya geeya majeerteen shaqo kuma wada lahane waa rag majeerteen oo dana gaara watay ayaa afduuba etoobiya geeyey oo soo bedelay oo falsification kasoo dhigay maalintaasna maxamed cabdullaahi farmaajo markuu sheegayay golaha baarlamaanka waa ku wada kacnay laakiin maanta waxaa la hubaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel in dastuurkii soomaaliyeed uu wada afduuban yahay ay soo bedeleen ay jaqaf iyo juquf kasoo wada buuxiyeen adinkuna aad qaadateen kii soomaali maxamed oo dhan ay go-aanka ku gaartay waa lagaa diiday dastuurka soomaaliyada xaddee bannaan kasoo dhiga inaad bedesheen oo wax kale aad ku darsateenna dastuurka puntland ay leedahay aad leedahay goormay dastuur puntland lahaan jirta waa dastuurkii soomaali ku heshiisay maannakii abeen iska dhaadhicinayna waa ognahay aan dhegaysanna odayga mareexaan oo in adeerkay baato laba nin oo mareexaan ahay way idhibaysaa waana ka naxahayaa taariikh xumo aad ka tegayso kaba tegi soomaaliya inaan dib u xukunaan rabnaa aqoon badan baa jirta boqolaal badan baa waxaasoo dhan waxaanu rajaynaynaa mareexaanta soomaaliya waa ka madduuc soomaaliya hogaamiye inay ka soo baxaan taariikh xumase hadday dhacdo mana la doonahayo soomaalina way naga tashanaysaa maanta waxaad hambaysay male hawiye ma aadan hambaynin oo gogashi ay kuu teeli ma aadan hambaynin waad ku tumatay gurigaagii ma aadan hambaynin oo gogashi labaad oo geda ah ma aadan hambaynin oo waad ku tumatay kablalax ma aadan hambayn dhig ma aadan hambayn 12 koofi noonkii cadcadka ahaa ma aadan hambayn cid soomaali ee maanta oo ku bixinaysa oo sida adiga aad ku talagashay hadday tahay la bixinaysa ma jirto waxaan rabaa inaan u sheego waxa farmaajo uu qabo mareexaan ma qabo lama qabno walaalaha yaa tihi sotogaaskiinu caytamaya awow macaan maantana waa idin jecel waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo beesha hawiya khaasatan beesha mudulood oo gogasha soomaaliyeed ay fidsan tahay oo hooyadii soomaaliyeed oo xamar ah waxa uu u geystay iyo waxa uu la damacsan yahay waanu ka raalli garaynaynaa leyd baa tahay 4 sano dhamaataaday wuxuu rabaa farmaajo diyaaradda saaran hargeysa oo maxamed siyaad baan ugu garaacay ay leeyihiin oo la soo celin lahayahay Soomaaliland sidaasoo kale uu rabaa in uu hawiyana ugu garaaca daaroodna ugu garaaca farmaajo hadduu nagu wax garanayo abaal la uula nimanka la yiraahdo oo maanta uu ka fakanaya ogaadeen waligood kismaayo barasa Elias bedelka boosa ugu horeeyay kama noqon barasa intaana mareexaan bay daba ordahayeen oo garab taagnaayeen oo heel iyo hoob la garab taagnaayeen maanta uu quuri waayay ogaadeen oo maamul goboleed ah uu quuri waayay abaalaawe waranagu adoo kale ma ahin abaalka ay noo galeen baan gudaynaa waa walaalahaya waana garab taagnaa say noogu sabcinayeen oo gacnaha saas isugu dhacayeen maxamed ugu sabcinayeen konton sano ninkii ka weyno ogaadeen marka maanta odaygii geelay ilaalinayo mareexaan saas u hadlayaayo awoogay ahaa dadka waxa waaye lagama nabad dhaco waad arkayseen sida uu hadlayay odaygii duurjoogga ahaayo waalna anigu waxay ii sheegayaan mareexaanankay markay dhulka tuurtaan oo waashaan dabcasayr oo kala jooga oo maaragtay abgaal caynay oo habar gidir saarkay noo caynahay bal muxuu ka qaadi karaa dabcasayr oo kale habar gidir bal dabcasayr oo kale ciddaan hawiyo oo wada dhalatay shiiq iyo shariif say u dhan yihiin waa hawiye waa qoomiyado aan la xisaabi karin ayuu wuxuu rabaa inuu ka taliyo inuu isku diro habar gidir iyo habyo waa arkaysa cayr anoo ila dhash anaa aabbahay macaan dhalay anoo walaalkay yahay anoo igu dhiig yahay bal dabcasayr oo kale markuu cayr caayo maxaa ula haray war yaa cayr adigoo kale annaku lamaba hadalne raggeennu kuma ceedayna ankee may fahanta adiga wax kula mid ah cayr iyo habar gidir midna wax kama sheegi kartid anigu haddaan rabo walaalkay aan dhabiilo laakiin dabcasayr oo kale ma dhabiili kara nin magaca hawiyo wata ama nin habar gidira anaa runta kuu sheegaya hawm lisxuno ilna kor u dheeraatay ilna hoos u dhacday ayaa tahay oo marna baabuurka seexdo marna qol markii lacag uu kuu soo diray farmaajona hotel aad seexato nin nolosha ka dhacayo derbi inaana tahay walaalkay aan marqaatiyo daris ila ah aniga oo wadaad shiiq caalin oo 5 waqtina tukada shaqaystana xalaashiisa cuna marka inaan nin habaaran tahay oo aabbaha iyo awowgaaba habaarka
kaaga dhinteen waan ogeen cayrna adoo kale wax kama qaado waa ku ognahay cayr halkaas iga saaran yihiin waa wadnahayga dhaq 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 dhahaya cayr adiga iyo wax kula midana ragga cayr uma jawaabaan naagahan ku sii daynaa soo ma ogid siyaasadda maanta inuuna mareexaan aqoonin ay inay dhiigga hawiye cabaan ay ku talagaleen kuwana dastuurkii ay daabteen waa ka xuma horta waa ka xumahay hadalladaas inay soo gaaraan ma ahayn laakiin maanta dastuurkii realitiga banaanka ku soo baxay inay cidda majeerteen ay garab duubteen dhibaatada ka taagan dhulka Garowana inay gabdhaha reer Muuse Mataana ay dhashay anigu waa jeclahay reer Muuse Mataana waa dadkaygu la soo ceesheen walaalahay la soo ceesheen ay wax wada cuneen ay saaxiibo ahaayeen naaga bizaani reer magaalo ay wada ahaayeen naaga siyaasadda weligood meel geesa uga jireen ahaayeen kuwii maxamed siyaad barre oo baabi'iyeen ay ahaayeen oo korontada uu ku gubaayay naasaha intuu uga qabto asargaal jira gabdhaha anigu habarta anigu walaashay dhashay cuntada ugu geyn jiray waa kow marka maanta gabar ina Muuse Mataana gabaray dhashay oo dhulbahanta qabo in maanta ay Siciidani ka hor timaado wuxuu rabaa aad gobolkiisa u joogaa Siciidani anigu hadda waataan ka hadlahayo dastuurka dadka afduurta inay yihiin reer Puntland we know laakiin reer Puntland oo dhan shaqo kuma lahan waa odayaal dana shakhsiya ay leeyihiin inay dastuurka ku ilaashada rabaan ayaa dastuurkii Soomaaliyeed intay Itoobiya geeyeen ee baajinana ka gureen xadeenna marka arka wuxuu ka hadlayay Cabdi Qaydiid rag buu u afduuban yahay yaa waa rag la sheegay waa reer Puntland waxaana ka mid ah Cabdiweli Gaas iyo Faroole iyo rag badanaa ka mid ah anigu ninna ma aynahay laakiin waxay inii sheegayaan marxana maanta saanay u hadlayaan maanta markay baabi'iyeen ay bahdileen ogaadeen ay ku leeyihiin waa walaalkeena waa noo sabcinay shalay maxaa uga qaban weyd why today shalay maxaa uga qaban weyd ogaadeen waa nasab dhalaan ku leeyahay waxay galaan iyo waxay gudaan waa naqaanaa anagu haddaan Soomaali Maxamed nahay haddaan hawiye nahay haddii reer waqooyi yihiin we know dir iyo daarood waxa ay galaan ogaadeen waa naqaanaa nasabnimaduna waa u dhalasho ee iska raadis ma ahan marka taasaan leeyahay sheerkana ha lagu dadaalo subscribe-gana saara follow-gana saara maxay tahay xaasidnimada intaas leeg aniguna dadkan waa dhicinayaa runtaan ka hadlayaa saa hadda uga hadlay waxaan isku arkaynaa hadallada cusub maaragtay Facebook waa in salaami I love you